shirkan oo guddiga farsamada hay'adda batroolka qaranka iyo shirkadda batroolka Turkiga uga socday magaalada Muqdisho muddo 3 maalin ah ayaa maanta la soo gabagabeeyay waxaana shir gudoominaya gudoomiyaha hay'adda batroolka qaranka injineer Cabdulqaadir Aadan iyo Master Korhan Akim agaasimaha mashruuca Soomaaliya ee batroolka Turkiga. Ujeedka shirka ayaa ahaa iswaraysi ku saabsan ururinta xogtii ugu dambeysay ee mashruuca qodidda shidaalka Soomaaliya oo heer gabagaba ah maraya, waxaana shirka farsamada qayb ka ahaa khubaro farsamo oo ka kala socday hay'adda batroolka qaranka iyo shirkadda batroolka Turkiga. Shirka kadib waxaa warbaahinta qaranka u faahfaahiyay ujeedka gudoomiyaha hay'adda batroolka qaranka injineer Cabdulqaadir Aadan Maxamuud. Waxaan maantay sidaad arkayseenba u fadhinaa gabagabadii shirkii advisory committee ama guddiga farsamada hay'adda batroolka Soomaaliyeed iyo maxaan ku yiraahdaa wakaaladda TBA-da oo aan kala shaqaynaynay sahankii haddana aan u gudbayno fayskii labaad oo ahaa qodidda. Marka maadaama hadda aan u fadhino waa gabagabo, daatooyinkii baa soo gabagaboobay, waxaana la rabaa in aad si taxadar leh loo sheego meesha ugu habboon oo la qodayo, iyada ay tahay ma ogtahay waxa ugu muhiimsan hadda. Haddii mar wax yaroo qalada samaysid waa garan kartaa magnitude-ka oo qarash ah oo galaya. Marka waxaan aad hadda marka la tashiyo aan samaynaynaa gudaha iyo dibaddaba ah in la hubiyo meesha saxa ah oo la rabo in la qodo si loo sameeyo well design-kii. Marka shirkan hadda shirka ku xiga waxaan rabnaa ka ugu dambeeya ah oo aanu kaga dhawaaqi doono meesha aan rabno inaan qodno. Waxay ku aadanaan doontaa wiiga ugu horeeya bisha December 1 ilaa inta u dhaxaysa 7 magaalada Ankara. Saasaan isku afgaranay. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in shaqadii sahanka iyo turjumidii iyo processing-kii ay marayaan final stage-kii, meeshii ugu dambeysay ay marayaan hadda, oo aan rabno hadda inaan xaqiijino meesha saxa ah oo la rabo in la qodo. Marka arrintaasaan rabnaa inaan la wadaagno ummadda maadaama ay sugayeen arrintaas. maanta una shirku noogu egyahay midkayga ku xigana wuxuu ka dhici doonaa magaalada Ankara oo aan rabno inaan kaga dhawaaqno haddii Ilaahay Azza wa Jalla raalli ka noqdo. Laakiin waxaan rabaa inaan ummadda ugu bishaareeyo war dhulkaygu waa qani, annagu waa aragnay waana hubnaa. Marka in yar ha la yara sugo, ha la dulqaato. dowladdu culays badan ayay saartay, waxay saartay mataqaanaa waxa la yaalo wixii riski ku gadaamnaa bay ka qaaday. maanta meeshan aan joognayna ma soo gaarnayn haddii aanan xukuumadda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh iyo prime ministerka Hamza aysan ka qaadan lahayn xinin weyn, aysan ka qaadan lahayn maanta meeshan aan joogno maana soo gaarnayn. Marka ayakana aad ugu mahadnaqaynaa. ilaahayna annaka nagu garab galo in yara noo haray intaas hartay ilaahay hadduu yiraahdo. Saaminta shidaalka Soomaaliya oo soo bilaabatay sanadkii 2024 ayaa la soo gabagabeeyay bishii Juun ee sanadkan, waxaana la filayaa in dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqdo qodista shidaalka dabayaaqada sanadkan, taas oo guul weyn u ah guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Said Umar Sheekh Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Muqdisho.